dowlad deegaanka Soomaalida ayaa haatan waxa la sheegayaa in ololihii la dagaalanka musuqmaasuqu uu ka bilaabmay guddiga ay magacowday xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ee la dagaalamaya markaasi musuqmaasuqa ee uu madaxa ka yahay wasiirka cadaaladda ee Itoobiya ayaa haatan howlgalay waxaana ay tallaabadii ugu horeysay soo saareen marka go'aamo ay ku sheegeen inay kaga hortagayaan musuqmaasuq waxa ay joojiyeen gabi ahaanba in wax kala iibsiga xagga dhulka iyo guryaha iyo marka gawaarida waa la mamnuucay markaasi kala wareejinta hantidaasi muddo 3 bilood waxaana guddigu sheegeen inaan wax la kala iibsan karaa aanay jirin oo hanti waaweyn ah oo markaasi saddexdaasi ugu waaweyn tahay guryaha iyo moogta gawaarida iyo dhulkaba waxaana yiraahdeen markaasi muddada 3 bilood ee baadhistu socoto waxba lama kala iibsan karo tan ayaa waxa ay keentay hadaba in ay saameyn weyn ku yeelato dad badan oo uu ku tiirsanaa kala iibsiga markaasi hantida guud ee la kala iibsanayo qaar dilaaliin ah qaar moogtay soo dhaweeyala yacni dad badan ayaa ku xidhnaa nolol maalmeedkooda kuwaas ayaa haatan sheegay caqabad weyn inay soo wajahday hadaba dhinaca kale waxaa hadaba la sheegayaa in ay gaabisba tahay dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida guddiga la dagaalanka musuqmaasuqu waayo oromada waxa la yiri haatan waxay maraysaa 1300 qof la soo xiray oo loo haysto wax istawmarin iyo markaasi qaar dilaaliin malaaliin yacni kullu leh markaa musuqmaasuq laakiin dhinaca deegaanka Soomaalida hal shakhsi oo wali loo xiray ma jirto baa leeyahay in musuqmaasuq uu qalay laakiin dhaqdhaqaaqyada ay wadaan hadda ayaa waxa loo arkay in ay wax qabadkii koobaad hagaag iyadoo haatan laga faraxashay oo uu gabagaboobay dagaalkii Tigreega iyo u dhaxeeyay xukuumadda Itoobiya ee 2 sano socday ayaa haatan waxa dib isaguna haatan u qarxay dagaal weyn oo xoogan oo markaasi kaba xun baa loo oran karaa dagaalkii hore ee u dhaxeeyay xukuumadda Itoobiya iyo Tigreega ee TPLF haatan waxa dagaalamaya qowmiyadaha Oromada iyo Axmaarada oo labaduba leh laba jabhadood oo hubaysan waxaana la sheegayaa dhimashadu inay kumanaan kun oo qof ay dhaaftay oo ay tira beel tahay waliba sida la isku dilayaana aan ahayn xabad la isla dhacay laakiinse qoorta ayaa la iska goynayaa la yiri waxaana la sheegay haatan dad badan oo marka qoorta laga gooyay in marka madaxoodii laga soo laalaadiyay dhirta oo halkaasi marka qaarna qoriyo la dul sulay oo marka qotimeynta la taagay dusha laga taagay madaxoodii dilka noocan ah ayaa ah mid gabi ahaanba ka baxsan bini'aadantinimada oo aad looga argagaxay caalamkii oo dhan markaasi ay ka yaxyaxeen xasuuqa iyo markaasi dilka xoogan ee ay isku geysanayaan Oromada iyo marka Axmaaradu hadaba waxa haatan lagu eedeynayaa dagaalka in ay bilaabeen jabhadda Axmaarada ee markaasi Faano oo la sheegay inay gobolka Walega marka Oromadii halka deganaa ay suutida u qabteen oo marka dil aan kala sooc lahayn yar ilaa weyn dumar iyo caruur wixii ay arkaanba markaasi la sheegay inay qudha ka jareen hadaba kadib ayaa waxa la sheegay Oromadiina markaasi in ay keentay in jabhadda Oromada oo LA ay miciin badan oo haatan ay noqotay mid kaliya ee ay ku faanayaan ee difaacaysa waxa hadaba jirta dagaalkan oo haatan 100,000 oo shicibna ay ku barakaceen ayaa madaxdii xisbiyada ee marka labada qowmiyadood ee Oromada iyo Axmaarada ayaa labaduba haatan waxay la kala safteen qowmiyadahoogii haddii aynu ku horeyno dhinaca Axmaarada xisbiga Isiima hogaamiyahooda ahna wasiirka waxbarashada ee heer federaal ee Itoobiya oo mar dhaweyd hadlay ayaa waxa uu soo saaray baaqayladaan ah oo marka Axmaaro oo dhan ugu baaqay in ay hub ka qaataan waliba uu ku sheegay kuwa tuulooyinka jaarka la ah ama la degan Oromada in xoog loo hubeeyo buuri si ay isku difaacaan oo ay ka hortagaan wuxuu ku tilmaamay marka jabhadda Oromada ee oo sheegay in Axmaarada markaasi ay haatan dil baahsan ku hayaan marka waxa uu yiri waa in Axmaar istifaacda waliba kuwa furimaha hore tuulooyinka jooga buu yiri ay hubka qaataan iskana celiyaan marka kooxaha Oromada hadaba waxa ka daba hadlay isna hogaamiyaha saameynta weyn leh ee dhinaca Oromada waa Jawhar Maxamed ayaa waxa uu ku sheegay hadalkaasi uu ku hadlay wasiirka waxbarashada Itoobiya ahna xisbiga Isiima madaxiisu inuu yahay marka
wax lagu qoslo oo aan markaasi caqli fayoobi ku hadli karin in hubka markaasi uu ku dhiirigeliyay in axmaar oo dhan qaadato oo isdifaacaan taasi oo ku sheegay haddii ay markaasi taasi dhacdo inay keenayso Ethiopia dhan inay markaa baabado waxaanu yidhi hubka dhigis baa loo baahay dhinaca kale xal buu soo jeediyay Jawhar Maxamed oo waxa uu ku baaqay in jabhadda Oromada ee OLA haatan ay xukuumaddu wada hadal la furto xabadana la joojiyo dhaliilo kulul buu jeediyay dhinaca dowladda heer markaasi dowlad deegaan ee Oromada oo sheegay inay fashilantay oo loo baahan yahay buu yidhi markaa in meesha laga saaro oo haatan Oromadu tashatay buu yidhi haddaba dhinaca kale waxa si kulul isna uu hadlay gudoomiyaha isla xisbigaasi OFC waa Baqala Garba waxa uu Baqala Garba haatan isagu taagan yahayba in jabhadda Oromada OLA ay yihiin xaqu dir buu yidhi oo haatan ay markaasi qaar u dadaalaya xuquuqda Oromada oo u dagaalamaya ay yihiin buu yidhi waa sidoo hadalka u dhigay saadarteed waa in la taageeraa buu yidhi waxaan u baaqay Oromo kuwa qurbaha joogiyo kuwa gudaha joogaba in ay ka garab dagaalamaan oo ay la saftaan oo ay taageero muujiyaan buu yidhi dhinaca jabhadda OLA oo sheegay xasuuqa Oromada lagu hayo inay haatan iyagoo kaliya ay ka badbaadin karaan oo ay marka xuquuqda Oromada u dagaalamayaan haddaba haatan xaaladdu jiq ayay tahay waxaana la sheegayaa marka in dhimashadu ay tirabeel tahay oo markaasi meydku isdul rasaysan yahay gobolka Walaga ee markaasi iyo dhinaca North Shiwa ama waqooyiga Shiwa halkaasi oo la sheegay marka in dilkii ama gumaadkii ugu weynaa oo haatan ka socdo haddaba dhinaca xukuumadda federaalka Ethiopia ayaan iyagu weli haddaasi ka hadal dagaalka xooggan ee haatan u dhaxeeya jabhadda Oromada iyo jabhadda Axmaarada ama waxa la oran karaa badal labadii qowmiyadood ee Axmaar iyo Oromo oo haatan marka isgumaadaya weli hadda waxa la sheegay xukuumaddu inaanay ka hadal Abiy Ahmed ayaa la sheegay haatan in isgaabinaya ama moogtay arrinkaas inuu ka hadlaanu doonin maadaama isagu ka soo jeedo qowmiyadii moogta Oromada taasi oo haddii uu marka uu ka hadlo ka cabsanayo inay yiraahdo dadkiisii Oromadu u doodaya oo markaasi ay kala qaybsanaan ku timaada Ethiopia saadarteed waxa uu xukuumaddu go'aansatay waa leeyahay marka inay shirta gasho dhinaca kale waxa ay kuba eedeynayaan moogtay hogaamiyaasha xisbiga OFC in ay xukuumadda federaalku Axmaarada raacsan tahayba oo wuxuu sheegay diyaarado drones in markaasi dagaalka ka qayb galayaan oo haatan Oromada laftarkeedii xasuuq loo geysanayo oo marka xukuumadda Ethiopia ay u geysanayso labada hogaamiye ee markaasi xisbiga OFC Jawhar Maxamed iyo Baqala Garba waxay labaduba ku baaqeen xalay toole oo ay yiraahdeen waa in xukuumadda Abiy Ahmed haatan dagaal xooggan la galaa oo la difaaca bay yiraahdeen markaasi jiritaanka Oromada haddaba Abiy Ahmed madadkiisii Oromadii ayuu leynayaa xaalku sidee buu yahay baa la isweydiin karaa waxaana haatan la sheegayaa in Abiy aanu markaasi isagu haatan xukuumadda federaalka marka la sheegayo aanu kala jeclayn Oromo iyo Axmaaro markaasi kay doonaan baadaan cidii isaga ka hortimaada xukuumaddiisa ee mucaarada in markaasi dagaal aan kala sooc lahayn isagu ku qaadayo saadarteed jabhadda OLA ayaa haatan waxa uu ku baaqay Abiy markaasi ilaa 3 wiig ka hor in shir balaaran oo isku yimaadeen madaxda hoggaanka sare ee xisbiga barwaaqo iyo marka madaxda sare ee xagga difaaca Ethiopia moogtay generaalada sare xagga sirdoonka iyo kuwa militariga wadatashi balaaran baa la yeelanayay bariyahaasiba kaasi oo la go'aansaday in aan wax wada hadal la gelin jabhadda OLA laakiin dagaalka la sii wada buu yiri waliba dagaal baahsan la bilaabo kii ayaa haddaba haatan socda waxaana la sheegayaa haddaba in qowmiyadda Axmaarada maleeshiyaadkii faanoona ay haatan ka faa'iideysanayaan weerarkaasi xooggan ee xukuumadda qorshaysay in jabhadda OLA ku qaado